geedka qustalhindi waxa uu ka mid yahay dhirta nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay dawanimadiisa, sidoo kalena waa geed dadka isticmaalaa ay ka marakaceen dawanimadiisa. Haddaba muxuu dawo ka yahay geedka qustalhindigu? Haddii aad rabta inaad iska daweyso noocyada kala duwan ee bakteeriyada ee dhibka ku haysa bini'aadamka, isticmaal geedka qustalhindiga. Waxaanad soo qaadataa geedkan oo budo ah, kadibna waxaad malqacad yar ku darsataa shaah bigaysa ama biyo kulul 2 jeer oo kala ah quraacda ka hor iyo cashada ka hor, adigoo wadaya ilaa 3 bilood oo xidhiidh ah. Dhinaca kalena, haddii aad rabto inaad jidhkaaga ka saarto noocyada kala duwan ee infekshanka, isticmaal geedka qustalhindiga adigoo u isticmaalaya qaabka hore aynu soo sheegnay. Sidaasoo kalena, haddii aad rabto inaad kama dambays isaga daweyso noocyada kala duwan ee gaastariga iyo dhammaan xanuunada caloosha, waxaad isticmaashaa geedkan qustalhindiga. Sidoo kalena, haddii aad leedahay dhiig kar oo aad rabto inaad si dabiici ah u xakamayso, waxaad isticmaashaa geedkan qustalhindiga. Isla markaana, haddii aad leedahay xanuunka kolestaroolka oo aad rabto inaad iska xakamayso xanuunkaasi, waxaad isticmaashaa geedkan qustalhindiga. 5 arrimood ee aynu sheegnay iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin waxyaabaha uu sida cajiibka u daweeyo geedkan qustalhindigu. Sidoo kalena, malabka ayuu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inuu yahay dawo. Marka haddaba la isku daro cuudal qistiga iyo malabka, ayaa waxa sii badanaya qiimaha caafimaad ee ay jidhkeenna u leeyihiin. Haddaba aynu soo qaadana 7 xanuun oo lagu daweeyay cuudal qistiga iyo malabka la isku daray. Waxaanay kala yihiin: 1. Waxa lagu daweeyaa dhammaan xanuunada ku dhaca laabta noocyadooda kala duwan, sidoo kalena waxay dawo ka yihiin hargabka ku xumaada qofka. 2. Waxa lagu daweeyaa qaar ka mid ah xanuunada ku dhaca maqaarka, waxaanay wanaajiyaan guud ahaanba caafimaad qabka maqaarka. 3. Waxay awood u yeelaan bixitaanka timaha, waxaanay ka hortagaan wax kasta oo sababi kara daadashada timaha. 4. Waxa lagu daweeyaa xanuunka ku dhaca qanjirka tayroodhka iyo guud ahaanba qanjo xanuunka. 5. Waxay wanaajiyaan muuqaalka guud ee qofka, waxaanay jidhka ka saaraan fayraska iyo bakteeriyada. 6. Waxay u wanaagsan yihiin dadka qaba xanuunka macaanka ama sonkorowga. 7. Waxa lagu daweeyaa madax xanuunka, waxaanay ka hortagaan xanuunada keeni kara ilka xanuunka. Mahadsanidin.